ninkan wuxuu noolaa dunidan uu joogay 82 sano weligiis ma arkin wax dumar ah. waxaad isleedahay camole ayuu ahaa maadaama uusan weligiis isha saarin dumar, laakiin maya, indhoole ma uusan ahayn. haddaba aan kula wadaago qisada fajaca leh ee ninkan. wuxuu dhashay 1856, magaciisa waa Mikhailo Dolodos. bilowga noloshiisaba nasiib fiican ma uusan lahayn ninkan, maadaama isaga oo 4 saacadood jira ama dunida jooga hooyadiis ay geeriyooday. qoyska uu ka dhashay ninkan lama aqoon maadaama qoyskiisa la garan waayay, hooyadiisna ay geeriyooday. waxaa dhacday in koox rag ah ay qaadeen ninkan, geeyeenna kiniisad ku taala buurta Athos ee dalka Giriigga. kiniisadaasna waxaa loo ogol yahay ragga oo keliya in ay galaan. ninkan waxaa magaca xitaa u bixiyey madaxda kiniisadda. laakiin maxay ku dhacday in weligiis uusan arag wax dumar ah? haweenka ku nool dalka Giriigga ilaa iyo hadda looma ogola inay tagaan amaba u dhowaadaan buurta lagu magacaabo Athos. ilaa 1000 sano ka hor ayayna sidaasi ahayd. waxaa jiray sharci la soo saaray sanadii 1600-kaas oo sheegayay in haweenka iyo xayawaankaba laga mamnuucay inay tagaan ama u dhowaadaan buurtaas. xitaa waqtigan la joogo, haweenka looma ogola tegidda buurtaas 500 mitir wax ka fog, xitaa kama soo agdhowaan karaan. sharciguna waa mid adag. weligiis Mikhailo kama uusan tegin kiniisadan buurta ku dhex taala. kadib 82 sano wuu geeriyooday ninkan. markuu geeriyooday kadib, xaflad qaas ah ayaa waxa u qabtay madaxdii kiniisadda, maxaa yeelay waxay aaminsanaayeen inuu ahaa ninka keliya taariikhda dunida aan weligiis arag ishan aan saarin dumar. fadlan kusoo biir barahayga bulshada sida TikTok, YouTube, Facebook oo follow iyo subscribe dhaho si ay kuu soo gaaraan muuqaalada aan soo geliyo. sidoo kale muuqaalka like iyo share soo dheh, commentigana kusoo qor aragtidaada. mahadsanid. aan ku laabto muuqaalka. qaybta ugu muhiimsan ee qisada ninkan waa in ugu dambeyn nolosha uu faaruqay isagoo aan arag dumar. nasiibna uma uusan yeelan arkidda dumar, waana dhacdo yaab leh marka si loo eego, marne waa dhacdo cajaa'ibteeda wadata. wuxuu geeriyooday 1938, waana ninka keliya taariikhda aan arag wax dumar ah, isagoo ku noolaa mid ka mid ah kiniisadaha Giriigga oo aan loo ogoleen dumarka inay galaan. meesha ninkan uu ku noolaa waxaa tegi jiray dalxiisayaasha ragga ah, abidkiisna kama uusan bixin kiniisadaasi, xitaa irideeda ma tegin. goobtan waxay lahayd sharciyo adag sida in aadan qofna la murmi karin, la dagaalami karin, ku dhex qubaysan karin, iyo shuruuc kale oo aad u adag. waxaa jiri kara rag badan oo haddii ay ku dhacdo waxa ku dhacay ninkan, iyaguna ay noqon karaan sida Mikhailo. geerida hooyadiis waxay sababtay in uusan nolosha ku arag dumar, guursanin, kuna noolaado nolol aad u xun marka si loo eego. muuqaalkii maantana waa egeyntaa, balse mar kale waxaan ku xasuusinayaa inaad kusoo biirto barahayga bulshada sida TikTok, YouTube iyo Facebook oo follow iyo subscribe dhaho si ay kuu soo gaaraan muuqaalada aan soo geliyo. sidoo kale muuqaalka like iyo share soo dheh, commentigana kusoo qor aragtidaada waxay tahay. mahadsanid.